Premier League Ingiriiska waxa uu soo maray toddobaad aad u xarakeysan oo jahwareer ku riday saadaal bixiyaasha oo waxaa tin iyo cirib isku dhagan Manchester City, Manchester United iyo Newcastle. Manchester City oo liislaha waxay soo qabanaysaa Arsenal waxa jeega u riday baalasha ay ku biibaysana ka rifay kooxda Manchester United. waxayna ahayd ciyaar si gaar ah isha looga hayay oo TV-da caalamka oo dhan ayaa laga daawanayay. Manchester City ayaa isgeysay garoonka Old Trafford iyadoo ku tilmaaman in ay tahay kooxda u qatarsan Premier League oo waliba doonayso in ay ku guuleysato ciyaartaasi si ay u hiraado kooxda Arsenal. balse waxay la kulantay ma ahayn kooxdii ay horaan xireen 6 gool oo waxay la yaabeen in ay kooxda ay la dheeleyso ay tahay duul meel kale ka yimid. aber ayaa loo kala nastay balse markii garoonka la soo galay Grealish ayaa kubad si wanaagsan loo soo dhigay madaxa ku garaacay wuxuuna ka dhaliyay gool uu waaridii ka ahaa De Gea. balse kooxda Man City waxa balaayo u ahaa goolka ay dhaliyeen. Bruno Fernandes ayaa barajeeyay oo kubad awood leh ku garaacay Ederson. ciyaartii 2-1 ayay isku bedeshay oo waxa mar kale ka dhaliyay Rashford. kubadu waa balaayo City-na balaayada ayay lagu heedo ku soo doonatay. barnaamijka ciyaaraha waa naga inta waxaan idin soo tabanayay anigoo ah Xasan Ayman.